qalad ah markaasuu ilaahay naartiisa naarta alla uu dadka ku cadaabo ayuu kelimada darteed 70 sano ayuu naarta gudaheeda sii galaya halkii kelime ee uusan u fiirsanin ku kaftamay kelimo kaftana ka soo baxday hal kelimo oo wanaag oo ilaahay raali ka yahay carabkaagu ku dhawaaqayna waxay keeni kartaa inaad darajooyin sare aad jannada ku hesho oo ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'aala ilaahay ka raali noqdo khaatumada kuugu hagaajiyo ilmahaagii reerkaaga kuugu barakeeyo marka wax weeye carabkan ama xubinkani waa silaaxun dhu xadayn waa hub laba af leh haddaad xagga u isticmaaltana xumaantana waa kuu jaraya waa kuu goynaya samaanta iyo wanaagana waa kuu jaraya waa kuu goynaya adigu saad u isticmaasho Allah subxaanahu wa ta'aala marka wuxuu inoo siiyey waa inagu imtixaanaya xubnaha imtixaanka la inoo siiyay kamid min diba lagu dhibay waxa lagu yiri halkaana u isticmaal halkaana ha u isticmaale waxa lagu fiirinayaa marka bil ilaahi subhanahu wa ta'ala inaad amarkiisa qaadato xubinkan ilaahay ku siiyay inaad Allah subhanahu wa ta'ala kaga dambayso oo ku ateecdo iyo inaad si xun u isticmaashaa lagu fiirinaya laakiin laguma siinin jacayl lagu jecel laguma siinin inaad sida Allah saad doonto adigu u isticmaasho laakiin waxa lagu siiyay in lagu imtixaano bal lagu tijaabiyo waa lagu fiirinaya ilaahi subhanahu wa ta'ala alihi ku siiyay baa ku fiirinaya malaa'ik baa lagu soo diray ku kor joogto oo ku muraaqabaynayso wardi baa laga haya bal afkaaga wax ka soo baxa adimada oo sameeyaan baa la fiirinaya yani wax way la ilaalinaya saas daraadeed baa Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid insaanku kelimo kuma hadlo illa hadduu ku hadlo kelimada kasto ka soo baxda laba malag baa dhinacyaha ka taagan raqib atid labadoo magacaas ay leeyihiin وصفه الرقيب ويانو وإلاليه ووارديه مرنا ما مقناده ما تغو يعني لما وايو ما سيحدو ما هالمامو شغك لما قبطو ما مشغولو waxa uu inta u taagan yahay ee loogu batalagalay waa waxa ka soo baxayo atiid raqib waa diyaarsan yahay waana waardiye adigaas marka waardiga laga haya diiwaan weyn ba halkan yaala oo laga diyaarinaya diiwaankaasi ay malaa'iktu ka diyaarinayso waxa ka soo baxaya ay ku qorayaana waa mid ka maalinta qiyaamada marka tagto lagu soo hordhigi doono oo lagu dhihi doono iqra kitaabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba waa ka diiwaankii laga qoray reportkii laga diyaariyay akhrisa lagu oranaya maanta isaga xisaabiye kuugu filan adaa is xisaabinayo markaas meesha waxa ku yaala maalin hebla waxa samaysay saacad hebla waxaad samaysay wax alla wixii afkaaga ka soo baxay wixii xubnahaagu ay sameeyeen daqiiqadii waqtigii meeshaad ku samaysay kulli meesha ku qoray hadaad akhrido kulli wax ma wada garanaysaaba mar alla markaad akhrido oo ogaato inuu khaladkaagi yahay adaa is xukumiba adaa is xisaabinaya adaa is xukumaya inaad naar galayso inaad janno galayso meesha ku qoran tahay wixii dhan goorma la diyaariyay waxa la diyaariyay inta adduunyada joogtay حيالي الله سبحانه وتعالى إساقو حقوقاله oo ayna waxba ka qarsooneen oo waxaynu nahay oo dhan inaga warhaya bal qalbigeena intuusan shaygu ku soo dhicin waxa ku soo dhici doono Ilaahay subhanahu wa ta'ala sheekada qalbigeena ku sheekaysanayo ee wali afko uusan ku dhawaaqin xubnuhuna ayna sameeynin Ilaahay waa ogsoon yahay subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi sudur waxa laabta ku jiro ogsoon yahay Allah subhanahu wa ta'ala isagoo og ayaa hadana Ilaahay maa'ig buu soo diray iyada in kor joogta inugu lamaan nala socota waxay naga diyaarinaysa waxay naga qoraysa waa inaad marka ku tala gasho inaad tahay ruux la waardiyo saaran yahay oo ribood laga qorayo hadaad sida qalbigaagu ay gasho wax badan baad la haraysaa laakiin waxa nasiib xumaa dad badan qalbigooda iyo dareenkooda waa ka maqan yahay aqeedada ah malag baa ku dul joogo xagga Ilaahay waxba laga qorayaa wax reebo wax iskula had xubinkani marka waa xubin halista leh وحبك النبي قال يري صلوات ربي والسلام عليه من يضمن ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له الجنة بالنبي صلى الله عليه وسلم لبدي سلوغوت وحا أبنحية روحي إيد ضمانا قادة إنو إلالينا لبدي سلفود إيقاركا انت أبحيسا إنو إلالينا إيد ضمانا قادة jannadaan u damaano qaadi buu nabiga sallallahu alayhi wasallam labada lugood maxaa u dhaxeeya waxa u dhaxeeya xubinkii taranka
xubinka ruuxii ballan qaada inuu ilaalinayo oo xaaraanta ka ilaalinayo oo xalaasha kugu ilaalinayo oo zinada ka ilaalinayo oo ilaahay wuxuu u xalaaleeyey ku ilaalinayo ruuxii damaano qaado oo arrinkaa ka adkaada markaana ku dara labada lafgar maxaa u dhaxeeya afkiiyo carabka u dhaxeeya afkiisa iyo carabkiisana ka adkaada nabigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam kaas jannadiisu waa garantii waa damaano wey midda ayada hadal kuma jiro war male saas daraaddeed buu nabigeenu sal ly slam xadiid kale wuxuu ku yidhi akharu maa yudkhilu nnaasa annaar alfamu walfarju buu nabi yuri sal lay slm dadka inta naar iyo cadaab gasha waxa ugu badanee naar iyo cadaab geeyey waa afka iyo xubinka taranka buu nabigu yuri sal lay wasalam labadaasaa ugu badanoo naarta dadka geliya xubnaha kale marka loo fiiriyo gacmaha lugaha yani waxa weye indhaha kulli waxaa ka khatarsan oo ka halisan waa yani carabka iyo xubinka taranka labada haddaad ka adkaato ilahay agtiisa jannaad ku leedahay subxana wa tacala labadaa haddaad ka adkaan weydo midkood uu kaa tambato ama xubinkii tarankabaad ilaalin weyda walciyaadu billaah oo shaytaan iyo nafbaa intay kaa tambateen bay faaxisho kugu rideen ama carabkiibaad ilaalin weyday oo waxa weeyaan isagiiba yani kula tegey markaasuu iska daaqsaday seetadii goostay iska shaqaystay wuxuu doonuu sameeyey markaasi labadaa goorba ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala waxay u badan tahay inaad cadaab geli doonto walciyaadu billaah sidaas daraaddeed baa waxaa loo baahan yahay inuu ruuxu 100 goor xisaabtamo oo intaasoo goor uu u fiirsado oo uu ka baaraandego marka uu doonayo inuu hadlo waa inaad miisaanto kelimada kaa soo baxaysa maxay kugu biirin kartaa maxay miisaankaaga khayrka gelin kartaa maxay shar oy kuu geysan kartaa haddaadan xisaabtamin waxaa dhacaysa carabkaasi inuu kuu shaqeeyo oo uu kuu beero beer aada u xun oo berrita midhaheeda aada gosan doonto ilaahay agtiisiina cadaab iyo ciqaab aad ku heli doonto ama sabab kuugu noqon doonto saas daraaddeed waa in aada loo taxadaro xadiidka mucaad ibnu jabale fii sunani tirmidi wakayrihi ku yimid nebigu sal lla alay wasalam mucaad baa wuxuu ku yihi nebi allow waxaad ii sheegtaa wax jannadana igeeya cadaabkana iga fogeeya nebigu sal lla alay wasalam wuxuu usoo sheegay ilaahay keygii caabud salaada tuko oo oog salaada hagaaji soonka soon yacni arkaantii aan naqaanay baa loo soo tiriyey tirarka waaweyne diintu ku taagan tahay markaasaa waxaa loo sheegay haddana acmaasha sunnada ah habeenkii salaada la tukado sadaqada la baxsado waxyaalahaasuu nebigu uga soo sheekeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu wuxuu uhi nebigu sal lla alay waslam makuu sheegaa wax arrinta tiirdhaxaadkeeda waa islaamka maaratay yani waa arrinta madaxeedu diinta madaxeedu waa islaamka tiirdhaxaadkeedu waa salaada yani meesha ugu sarraysa waa jihaadka wahaakada nebigu siduu usoo waday wuxuu yihi makuu sheegaa alaa ukhbiruka bimalaaki dalika kullihi buu nabig sal lay slam waxa aan soo sheegay oo dhan waxa isku fuuqfuuqsaday oo wada milkiyey oo kulli ay isugu imaanayaan makuu sheega xaaburi rasuul ilaahi markaasuu nebigu sal alay wasalam carabkiisa intuu saa u qabtay buu wuxuu yihi kan iska jir buu nebigu sal lay kan iska ilaali waxa arrinta dhan ay isugu soo biyo shubanaysa waxa weeye carabkaaga iska qabo markaasaa mucaad wuxuu yihi oo rasuul ilaahayow waxa aanu ku hadlayno miyaa naloo qaban doonaa waa annagan iska hadlayna iska kaftamayna iska qoslayna yacni dan aan ka lahayn waxaan miyaa la iskaga daba imaan doonaa oo ma la isweydiin doonaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam hakiladka ummuka yaa mucaad war mucaad hooyadaa ku weyday hooyadaa gablantaya mucaadow dadka naarta waxa ku rida oo ama madax ugu rida ama minje ugu ridaayey ma wax kalaa wixii carabkooda u shaqaystay mayo ma wax kalaaba dadka naar geliya buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macna gaalnimada naarta dadka ku waarisa carabkaa shaqeeyey iyo qalbiga soo ma jeed macaasida waaweyne la gelaya intooda badan carabkay ka dhacaya waxaa naarta dadka geliya waxa u badan carabkaasa u badan weliba xubinka taranka carabkaa kasii khatarsan kaga khatarsan yahay ruuxu markuu yani kaba soo qaad naftiisi iyo shaytaan ay ku xambaarayso inuu zino galo waxay u baahan tahay muqadimaad iyo tillaabooyin ka horeeya iyo dadaal ka horeeya wax badan bay u baahan tahay zinadu wax markaba iska imaan karta maaha wax si fudud loo geli karana maaha waa wax u baahan dadkii inay is arkaan